waxaa lagu guda jira maalmihii uu dambeeyay dabayaaqada bisha barakaysan ee Ramadaan taasi oo ah gunaanadka gudashada mid kamid ah arkaanta ugu waaweyn islaamka haddaba iyadoo 10kii habeen ee Ramadaanta uu dambeeyay dhammaan masaajidada ku yaala magaalada Gabiley laga oogay salaatul leelka iyo tahajjudka dadweynuhuna sii siyaadiyay ducada iyo digriga ayaa haddana dhanka kale marka adeegto waxa maalmahan u dambeeyay laga dareemayay guud ahaan gobolka Gabiley dhaqdhaqaaqyo iyo abaabul xoogan oo loogu jiro diyaar garowga Ciid al-Fidr dafooday nagu soo haysa jawiga guud ee magaalada Gabiley ayaa ah mid rooban waxaana sanadkan traynta iyo farxadda Ciid al-Fidridani ku soo beegantay dhulka horeys leh iyo dhirto iyo caleemo raaquba ku bandhigtay oogada sare sidoo kale waxay ku soo beegantay xilli xagaa ah oo qurbajoog aad u tiro badan oo isaga kala yimid daafaha dunida ay ku sugan yihiin magaalada Gabiley sidoo kale qoysaska reer Jabuutiga ah oo alaaba u soo xagaabaxa magaalada Gabiley ayaa iyaguna sanadkan si aad ah u soo xagaabaxay taasi oo xami ka dhigtay oo kor u qaaday xarakaadka suuqyada iyo sayladaha ganacsiga magaalada Gabiley ciida sanadkan waxaad moodaa inay suuqyadu ka samxad badan yihiin sidii ciidihii hore si kastaba ha ahaatee dadweynaha ku dhaqan gobolka Gabiley ayaa si weyn ugu diyaar garoobaya munaasabadda Ciid al-Fidrida waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha reer Gabiley oo isugu jira xildhibaano qurbajoog iyo shakhsiyaad kale oo dareenkooda cabiraya iyo sida ay ugu diyaar garoobayaan Ciid al-Fidrida anigoo ah Maxamed Xaaji Aadan weli waxaan halkan marka hore ugu mahadcelinayaa Royal TV oo noodooyinka saacadda si weyn ugu soo kordhay inta Gabiley iyo aagay ka soo hormariyay wariye Cabdikariin oo hadee jeer barnaamijyada ama wararka si fiican xagga lagu tabiya ciidda waxaan Gabiley loogu ciidayaa si qiimo iyo qaayalo wanaagsan bishan oo bil raxmad ah oo Ilaahay umadiisa ku manaystay ah gaar ahaan Gabiley iyo ummadda muslimiinta si dhib yar oo qabow dhaaftay ayaa ummaddu reer Somaliland gaar ahaan dowladda reer Gabiley sanadka xitaa maca qurbajoog baa la joogaa oo Ramadaantu waxa walba ay santay reer Jabuuti baa la joogaa barwaaqa la iskaga wada jiraa si nabadgelyo ah oo wanaagsan baa lagu ciiday insha Allah taala halka ciidkii iyo dharka way soo dhex marayaan waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu ciideeda iyo soonkiisa lagu gaarsiiyo bashbashee barwaaqo bismillaahir rahmaanir rahiim maanta oo Ramadaan dabeeqadeedii tahay oo anigoo ah cibaado ma cilmi waxa degmada Gabiley aad loogu diyaar garoobay ciidii iyadoo caruurihii iyo dadkii waaweynaa aad ay u ciidayaan oo duhaamadii iyo meelihii wax lagu iibinaya ay aad maxay heleen looga ciidayo caruurta farxadoodii aad iyo aad baan u ciidaynaa waxaan qurbajoogii oo maanta la joognana waan u ciidaynaa ururka iyaga alkhayriye ee dibadda jooga ee dalka joogana waan salaamayaa Royal TV waan salaamayaa dhammaan golaha deegaanka ee degmada Gabileyna waan salaamayaa bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo Zahra Faarax Geerdoona oo ka yimid London oo maanta ku sugan gobolka Gabiley oo u diyaar garoobaya ciidii Ramadaan oo si dabayaaqaysanaya dadkii oo ciidii isku diyaarinaya oo aad iyo aad u qurux badan tahay ciyaalkii oo xinnihi iyo adduunkii la ismarinayo suuqii iyo warata bacallihii waxaan u malaynayaa ciidan inay noqon doonto ciid cajaa'ib yeelan doonta anigoo waliba ciyaal wato oo ciyaalkii aad iyo aad ugu faraxsan yihiin ciidda bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullah magacayga waxa la yiraahdaa Basri Ismaaciil Xuseen waxaan ka yimid London haddana waxaan joogaa gobolkii Gabiley wallahi ciidii Ramadaan ayaa aad loogu diyaar garoobaya magaaladu waa iska yar mashquul qurbajoog badan way joogaan anagana aad iyo aad bay farxad noo tahay anagoo maanta waddankaygii joogna iyo gobolkii aanu asalniin ka soo jeednay si fiican baan ula ciidaynaa aadna waan ugu faraxsanahay insha Allah ciid mubaarak baan oran doonaa ciidii kasta ee halkan hadii joogaan iyo hadii dadkii aanu ka nimin la dhan ay yihiinba TV-ga Royal TV oo noo suura galiyay waraysigana aad iyo aad ayaan maxay isagana ugu mahadnaqaynaa magaaladu waa iska yar mashquul dharkii ciidda maxayga waa la isku wada dhaxyaacaya alxamdulillah roobkii oo badan roobkii kala joogsaday nimcada iska badan alxamdulillah anigoo booq supermarket filling station waxaan marka munaasabada ciidda ugu talagalnay qiimo dhibis aad u far badan oo aan soo marnay 50% oo kale alaabta marba marka ka dambaysa waxaan keeninaa safarka ka dambeeyay kuwii ka cusbaa marka bulshada waxaan ugu baaqayaa inuu ka faa'iideysanayaa TV Royal soo marnaya
in iyaguna ka faa'iideystaan qiimo dhibistaan u sameynaya alaabta cusub. magacayga oo ah Anas Maadi anigoo ka mid ah shaqaalaha Farxaan Business Center waan halkan ugu mahadcelinayaa TV-ga caalamiga Royal 24 oo hariya habeen u heegan inuu soo tibiyo barnaamijyada dadka barnaamijyada bulshada rayidka waxa aan halkan ka sheegnaa hawshii ciidda oo si fiican u socota haddaan nahay guddiga bacdayaasha dadku wax iibsanayaan hadiyo jeer waxay u helayeen inay iibsadaan aad bayna u socotaa shaqadu kulleyna waxaan uga mahadcelinayaa TV-ga Royal 24 oo mar labaad aan filan inuu soo booqan doono waxaan leenahay wad maasantiin. magacaygu waa Mursal Maxamed Faarax waxaan ka mid ahay shaqaalaha Buux Supermarket anagu macaamiishayda boqolkiiba 50 baan u sameynay discount waxaan u keenay dharka noocyadiisa kala duwan sida dharka carruurta dharka dadka waaweyn ciyaalka. Royal TV anigoo magacaygu waa Khadar Maxamed Faarax kana tirsan bacdayaasha gobolka Gabiley aad baan hore mar labaad soo dhaqay TV-ga Royal TV naastaan aan ka hadlo munaasabaddan ciida ruwaantii munaasabaddan ciida aad bay u fiican tahay oo sanadadii hore sidii ma isku eego farqi weyn waa wariye qaamuus Royal TV gobolka Gabiley.